ورحمة الله وبركاته. dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto iyo bahda saxaafadda oo hadda nala joogta. waxaan rabaa ujeedadii oo lahaa kulankan waxa cadeeyay mas'uulka iga horeeyay. waxaan rabaa markaan ummadda Soomaaliyeed u cadeeyo annagu ma jirto cid aan mucaarad ku nahay oo aan diidayno, ma jirto cid aan taageerino oon taageersanahay oo aan ugu talagalnay shirkan jaraa'idna ma jirto. waxaan cadeynaynay oo kaliya matalaadi anku aan lahayn oo dadka malaayiinta qofooda ee ku nool isteediyada aan ka socono oo la dhihi karo dalka inta ugu badan waaye inaan dareemayno mas'uuliyadda dadkaas aan u haynay inaanan meel ku ogeyn oo la ishoosgeliyey. waxa uu cadeeyay mas'uulka iga horeeyay in shaqada la qabtay hadda dhamaystirkeedii aanan anagu arag, kuma matali karna dad malaayiina. waxbaa la qaaday meelaa la geeyey, mana ogin waxa meeshaas ku qornay. waa hadal aan la qaadi karin waaye. annaga iyo dadka baarlamaanka xildhibaanada jooga hadhowdii markii la tegaayo meesha la isugu tago annagoo ka siman wixii la qaybiyay un baan meesha ku arkaynaa. xildhibaanana ma nihinoo cod ma bixinayno oo kanan diidannahay dhihi mayno. anaga markaas waxaan naqanaynaa dad ay wax soo diyaariyey oo keena. marka waxaanan ogeyn natiijadooda iyo waxa meeshan ku qoran waxay yihiin kuma matali karna dadka. مثلا wuxuu cadeeyay hadda mas'uulka iga horeeyay oo akhrinayay in ay ku jiraan qodobo lid ku ah isteediyada. qodobo isteediyada lid ku aha ku jira aad ay xasaasi u ahaayeen. waa ka hadalnay mar labaadaan aragnay ayagoo ku jira, mar saddexaadaan aragnay waa laga bixiyay waana la yiri afka waana la keenay, laakiin anagu meel looga bixiyay ma arag. haddii ayagoo ku qoran meesha la geeyo anaguna meesha aan soo fariisanane war ma naqanaysa anaga wixii waa la qaaday mana ogin waxaan ku matalaynaa isteediyada oon wakiilka ugu ahaynay. waxaas ma ahan. waa in wax kasto xaqiiqa aan u ognahay. waxaa wax lala yaabo ah maalin dhaweeday waxaan isku ogeynay 3 qodob oo ka soo laabatay 4 cutub oo hore oo la ogaa oo baarlamaanku uu ansixiyay iyadoo 4taas qodob ay meesha ay ka maqan tahay, 3 qodob ay ka maqan tahay sorry la ansixiyay. 3daas qodob waxaan isku ogeynay in cilmi baaris loo diro, la soo soxo, la soo celiyo. guddoonka aadan uga xumay inaan eedeeyo, laakiin waa eedeynaa birkii ayaga ka shaqeeyay. markii aan u dhiibnay oo niri hal diro waxaa cadaatay inaysan dirin. waxyaabaha igu yaabka badan waxay tahay maalin dhaweed iyadoo shir lagu jiro madaxweynuhu oo fadhiyo yaan waxaan cadeeyay in ma aragtay 3daas qodob iyo heshiis siyaasadeed iyo 5 cutub guddiga farsamada aan u dirnay oo ma aragtay guddiga madaxa bannaan. ma dhicino ma dhihin arintaas sunnah ma jirto. markii aan isu tagno niri 3 qodob aaweene ka baxa jawaabteeda naqatay ka bax. ka baxna dadku ma matali karno mas'uuliyad ma ahan. ujeedadeenu waxay tahay oo kaliya in aanan ku shaabadeen oo wax beena aanan ka sheegin oo nalan dhihin waxaan ayaga ka shaqeeyay. haddii aad ay keenaan ciddi gudbisay u taala, haddii ammaan ay keenaan ciddi gudbisaa leh. annagu haddii aan nahay isteediyada kuma metelin isteediyadan wakiilka ka ahayna arrintaas wakiilna kama nihin. wixii dhaca mas'uuliyadeeda ciddi geysaa iskale. haddii khalad uu yimaado ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan u sheegaynaa khalad ka yimaado inaanan waxba ku lahayn. haddii wuxuu saxmaan oo sax ay ku yimaadeen intii geysaa iskale. aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.